الحمد لله ثم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى أيام هذا دان إسكال عليه نصر تقلي موضوعا إنه نوقف سوما. إخواني في الله، سيد عادة نوئهد إنه wanaag isu sheegana xumaantan aan iskaga digna ayaan iskugu kaalmaysanayna walaalayaal. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ساسو إليه سبحانه وتعالى wanaag iskugu kaalmaysta, xumaantana iskugu kaalmaysanina. walaalkiin muxuu idin wadaa maanta walaalayaal qiso ka dhacday nin boqor ah iyo nin reemi ah ayay qisada ka dhacday. aad baan ugu faraxsan inaan qisadan idin wadaaga. waxaana huwa haddii aad dhegaysatid in walaalahaaga kale aad u gudbin doontid si iyagana ay ugu faa'iidaystaan. طيب ninkan boqorka ah kharaja yasiru fi mamlakati. waa nin boqor ah, waa madaxweyne dalka dhamaal isagaa boqor u ah. habeen ayuu guureeyey intuu mamlakadiisa ka dhex baxay isagoon la ogeyn, isagoo isqarinaya. ujeedo u leeyahay wuu dhuuntay aayar uma baxay. ninna ma garanaysdee xilligaasna hadda oo kale maaha moogtahay. madaxweynaha hadda waxaa lagu garanayaa idaacadihii ayaa madaxweynaha laga sheegayaa, sawirkiisa meel kasta yaala oo meelaha ku dhegsan. telefishinada ayaa laga soo daayaa madaxweynaha sawirkiisa. ma xilligaas maba jirin waxaa moogta idaacad iyo TV waxa lama jirin. madaxweynaha dhegta boqorka dhegta un baa laga maqlay mooyaane siduu u yaala iyo qaabkiisa lama garanayn. wuu dhuunta marka keligiis isagoon la ogeyn ayuu haween madow ayuu baxay. soo u socday waa keligiis oo uu isqaranaya in la ogaan marabo. ujeedooni leey soo u socday xataa nazala calaa rajul lahu baqar. habeenkii dambe wuxuu ku hooyay nin hal sac leh, nin reemi ah oo hal sac bas leh, xoolo dhamaa hal sac uu ku leeyahay ayuu habeenkii dambe marti u noqday uu ku hooyay. فراحت عليه تلك البقرة. neefkii saca ahaa ayaa habeenkii soo carabay galabtii. saakii ileen baxee galabtii ayuu soo carabay. فحلبت waa la lisay. فإذا حلابها مقدار حلاب 30 بقرة. 30 sac inta laga lisa ayaa halkii sac laga lisay. sac aan badana بسم الله maxaa mucjisaan ku duuba maxay tahay? waa sacaana badan. 30 sac inta laga lisa ayaa keligiisa laga lisay. baraka ku duugan sacaas. waa fiirnaa muqtiniku adiga. ninkan boqorka ah waa marti ya musaafir. waana musaafir waana marti. musaafir miskiin lawlaa suldaan ayaa la yiri mugtahay. si kasta madaxweyne u tahay haddaad musaafir tahay waxaa weeye miskiin u baa tahay. haddana marti waa marti waxaa la yiri soomaalida waa maamahda waxay tiri marti fadhi muumin leh fiiro munaafiq leh. waa fadhiyaa fadhigiis markaa fiiris waa fadhi muumin waay maasha allah. laakiin indhahu mirig kasina wuxuu leeyahay cidda maxaa jira, cidda maxay quutaan, maxaa meeshaan ka jira. indhahaas oo kala socdaa. sici oo 30 sac inta laga lisayna u jeedaa. ya mar dhiish la gelinaya laga soo bixin haanta lagu shubay, haddana dhiish la soo buuxinaya haanta lagu shubay. waxa kulli hoos oo ka fiirinaya. ويا marka wuxuu yiri bismillah. waxaan waa mucjisay maxaa yiri
sac hal sac oo 30 sac caanahooda laga lisaayo wiligay ma arkin waxa ilaa weelashi oo dhan oo godlanay oo dhan laga buuxiyay ayuu fiirinay فحدث الملك نفسه بأخذها مركب نفتيس وكقلعي وشكي وكهمي وجعلستي قالت شلال وحجر كان أدي وكوف يعني كان نين مسكين اللي هو ما ترجلين أنا سو مدحوين ميه سو دلك أنا مدحوين ميه سو أنا بقر كي ميه نيف كان وين قعدوا كان أنا يوقف يعني نيدي سجلي إنه ظلمي نكان مسكين كأي إنه لقطة كلفته ونافك كقعته والسود وهذه ومرتي نين كان لو سو مرتين مقطع نين كان إنه بقري هي محوكو إلى نين رمي ومحبك مقطع فلما كان الغد غدت البقرة مرك هبينك والس كسح وسح لي صبح سيد عادة هي نافكي أيا فوفي ثم راحت كدن قلبتي دنبي وعصركي أيو صو عراب هدنا نافكي فحلبت ولا لسي نافكي سجاها فنقص لبنها على النصف سبحان الله ملك القدوس نافكي نس عانيس وانسقامو انت الشالي اللي جلساي نس كذا ما انت اللي جلس شن الطبانة كر أبودي شن الطبان سعود عن هذا كر أبودي ما انت واحد ما انت اللي سوا شن الطبان بس وافيرنا وذي قولي وجوجا بقرك وجوجا وافيرنا عندهم مركزين ويا أفكو قبسدي وحجري وركالي ساعة سعي الشاي محمية بسم الله الشاي صدق لقى ملسي وامح مانت أبارتان شان يتمنك مانت لقى لسي محيط ننكي وير وركالي وير كالي تعال هنا إما وير كال هالكا إما وحجري سؤال مكو يديا ها محاد دعو يجري شالي neef ka meel uusan daaqin miyuu maanta soo daaqay mayuu yiri meel shalay aadan geynin miyaad maanta geysaa mayuu yiri biyo shalay u cabi miya maanta aan la siinu yiri ilaa waxaa la yiraahdaa neefka saca markii uu godlooda caloosheeda markay godlootaa la yiraahdaa mugtahay neefka maanta si fiican markuu u soo daaqa wax aan fiican ay godlanaysa Soomaha hadii maanta wax fiican soo daaqan caloosheed ma godlanaysa aan fiican ma dhiqay Soomaha wuxuu yiri hadaba maxaa dhaco yiri hadii arinta ay wax isbedel u sin jirin meesha shalay aad geysay hadii maanta aad geysay maxaa dhaco yiri caanaheeda nisaa u koro boode maanta aan fiican ma dhiqin maxaa dhacay wax fiican ma dhiqin maxaa dhacay wuxuu yiri ولا ليال أعتقد أن الملك هم بأخذها وحان عن ملاينا وجري بقرك إنه كفكر قاعدة شديد بقرك إنه كفكر نيف كان قاعدة شديدة أيان ملاينا ساس درتد عن هذا ولا نسقامي محايل سكوغا محجري محايل فإن الملك إذا ظلم بقر حدي واحد ظلمية أما هم بظلم أم كهمي إنه واحد ظلمية حدي ودون أم نيستبا وكهمي إنه واحد ظلمية ذهبت البركة بركة أياب زوليس أعطاك سويري أرنت واساسو يا كوشوير واساسو ير أرنت يستقبل مو أغنيك إنه بقري لكن وحكو قرتي عنها نسخان كود عنها نسخان وحيري محايا بقر حدي ظلمية أما وكفكر إنه واحد ظلمية بركة دن يعني قاعدة واحد وجينا ماله سما ولا ليان محايا واحد وجينا ماله هو بقر تويد أو دن أيه هوستال
nin boqortooyada oo dhan ee hoos taalay hunguri kale wax kale ma ka soo galayaan waa may madaxweynaha oo dhan hadduu wax dulmina ka war mashaakil wax u geena ma laha gaajo uma geenaysa xoolo la-aan uma geenaysa isagii dhamaan xoolihii dhamaa isagaa gacanta ku hayaba waa boqortooyada dhamaa laba hoos taala soo maha markaasaa wuxuu yidhi haa masaasa facaahida almaliku rabbahu maligii boqorkii wuxuu ilaahay ballan kula galay allaa yadlima inuusan qofna dulminaynin walaa ya'khud albaqara neefkan sacan inuusan qaadinayn kan waa igbusu yidhi kan ninkan bahalkan mucjista oo dhibaatada oo keenay caanaha waxaan is qabiso soo baraka daro maaha wuxuu yidhi kan waa iga tufun yidhi kan faqaadad way caraabtay suuxii haddana way fooftay uma raaxat haddana galabtii way soo caraawday ayadoo bulaaxinaysa fa xulibat waa galabkii saddexaad marka galabkii saddexaad weeyaan wala socodkaas fa xulibat waa la lisay faidaa xilaawuha qad caada calaa miqdaar 30 baqr 30 sac inta laga lisay barakadaa soo laabatee 30 sac inta laga lisa ayaa haddana mar labaad laga lisa boqorkii wuu yaabay wuu fiiray wuxuu yidhi ilaahayow waxaan ballan ku qaadayu yidhi sida barakada ay u fiican tahay ama sida dulmiga uu u xun yahay oo caanahaas ay u nusqaameen cadaaladana soo sidaas u fiicin haa waxaa ballan uga ah inaan cadaaladda ku dadaalayo ballan waxaana kaaga qaadaya ilaahayow inaan cidna mar dambe aan dulminaynin neefkaana waa igbusu yidhi si ajirkeeda ugu batay ninkii meeshooba ku hanuuniba boqorkii walaalayaal ilaahay sabab wuxuu ugu dhigay saci dartiis inuu ku hanuuno ilaahay waxbuu dulmin jiray boqortooyadiis markuu joogay waxbuu dulmin jiray ilaahayaa waday si wax loo soo tusiyo ninkii waa hanuunay boqor fiican uu noqday qisada hadda maxaan ka fahmaynaa walaalayaal waxaan ka fahmaynaa dulmiga iyo siduu xoolaha u baabi'iyay dulmiga iyo siduu u xun yahay maanta adduunyada waxaa ragaadiyey oo baaba'shay waa dulmi kii meel loo dhiibo barakadana wax xoolaha ka qaadan waa dulmi soo maha dadkii suuqleyda ahaa halbeegi hoosaa laga jugayni hoos markii laga jugeeyo si ay dadka u qayaanaan dadkii wax tolay dhar suuq bacdalaha joogay dharkii waxaa weeyaan isagoo sekalaysan ama dhar jeexan ama dhinac ka jeexan ama dhar oo low quality ah ayaa dadkii laga iibinaya waxaad rabtaa xoolo badan inaad saas ku heshid wallaahi wax yar oo barakaysana ku dhaam wax badan oo tiro badan oo baraka 1 shilin oo $1 milyan $1 shilin oo baraka dara ee ku jirtay xoolahaas halkaas milyan halkaas shilin baabaynay kuwii caanaha gaday suuq joogay iyagana sidaas oo kale waa cabaadaya maanta meel kasta laga cabaadaya caanihii waa la barxa biyo lagu dar caano biyootay ah oo biyo socda ah ayaa laga qas waxa lagu leeyahay waa dhaay waa lagu leeyahay sheekh qaarkood waa dhaaranayaan wallahi dhaay way maxaa waaye waxaan dhaay haduu yahay muxsaan ugu dhamaya ma aqaan geed xun oo soo daaqay geedku xun soo daaqay maxay tahay waxaad xoolo bas ku raadinaysaa u fiirsa meel kasta maanta markaad tagtid yacni qayaanada iyo dulmiga xafiis oo kale meelaa jaga lagu dhiibaya waxaad leedahay ka faa'iidaysa muddo yaraad haysta ka faa'iidaysa xoolaha masaakiintaad boobaysaa war xoolahan masaakiina iska leh xoolaha iska malid wuxuu leeyahay daara ka dhisa account wax ku shuba biriya lagu qaban doonaa oo shaqada laga saar doonaa ma mishkila dhibaato ma laha Soomaa ma mishkila iska soco iska wad wax dhibaato ma laha iska cun ha iska cun dhac masaakiinta xoolahooda maanta
qofaa meel jaga ka haya ama dowlad ha ahaada ama qof shakhsi ha u shaqeeya ama meel kale ha ka shaqeeya xoolaha qof loogu soo dhiiba masaakiin ah sidaan ugu qeybiyaa leeyahay waxaa laga yaabaa 10% inuu siiyo ama 20% inta kale jeebka ku shubtay hadhowna wuxuu rabaa guryo inuu ka dhiso guryo ay u barkoowaan ilmihii iyo caruurtii iyo xaasaskii iyo ilmo adeeradii iyo waalidkii wuxuu siinaya adiga kale inuu dambiga kugu koobnaada ku fiican dad kale noloshooda dad kale dambigoodan dusha laga saaray kaadana dusha laga saaray intaas kuwan kale adigoon siin oo dambiga adigu kugu koobnaada ku fiican caruurtii siinaysa ilmihii caasi waay ma caasi ka dhigay xaraan afsiisay xaaski madax adeeg waa kana waa soo taagantay seeftay gal kala baxday adaa saas yaa sheekh guriyihii waxa arkaysaa maraakiiba ii soo socda maraakiibtii waxa arkaysaa ka qoosaysa baday qoostay xoolii waa baabeen waxa lagu leeyahay gaari oo ii soo socday oo xamuul ahaa oo xoolo ii soo wadi ayaa jidka loo galay waa la dhacay shaftaa gashay tuugo qaaticu turuq ayaa jidka intay u galeen ayaa xoolii baabeen waa murugaysan maanta waa murugaysan maxaa ku dhacay xoolihii maanta saas ku dhacay wuxuu ku leeyahay inta iga soo gaartay inta la iga soo habaaray in allaha la yumli al-zalim hatta idha akhadahu lam yuflitu ilaahay rasuulkeena wuxuu leeyahay sallallahu alayhi wasallam ilaahay wuu u kaadinayaa qofka zaalimka qofku wax dulminaya ilaahay wuu u kaadinayaa qofka waxa leeyahay maalin qabto ku dhaha waa kan xoolaha cunaya maalin qabto wax isbedel ugu imaanayna waa fiican ilaahay waa ku kaadina kuma moog ilaahay agtiisa la waxba laga mid iloobo moogtahay 10 sano 20 sano soo socota ha ku qaadatee 20 sano dib ha lagu dhigay ilaahay waa midka ku qabta qofka dhaalimka ah ilaahay wuu qaban waqti ba ka soo wareegtay ayuu rasuulka sallallahu alayhi wasallam caafimaadka laga rabaa laga yaabaa in laga galo xoolahaas oo dhan ilaahay waa kala firdhin doonaa see lagu kala firdhin doonaa caafimaadkaada lacag aan caadi ahayn lacagahaada oo dhan waxaa laga yaabaa in xanuun ilaahay uu kugu salido kadibna xanuunkaas qarashkaada oo dhan iyo xoolahaada oo dhan inuu meeshaas galo musiibo inuu ilaahay geliyo xoolahaada u baabiyaa laga yaabaa war wax yar ayaa kuu fiican oo barakaysan adigoon eedeysana ahayn ilaahay hortiisa aad la tagtid wallaahi hal shilin oo barakaysan ayaa kuu dhaama malaayiin oo baraka aan lahayn lagama xajin karo xajkaad aadaysa waxaa leeyahay 10 jeer xajka haddaad aadid xoolahaas ayaga ah dambiga waa ku saaran weli wax qofka laga aqbala ma xoolo xaaraan ah ayuu qofku ku soo xajin xoolo xaaraan ayuu sadaqaysan wuxuu ku leeyahay masaajidka waxaan ku tabarucay 5,000 wax qofka laga aqbala ma xaaraan hadee batay sadaqadaada laga ma aqbalay xajka laga ma aqbalay soonkaada salaadaada halis waaye marka walaalayaal waxaan isku dardaarmayna nafteyda ugu horeysay xaaraan aan iska ilaalina xaaraanta waa iyo dulmiga waa shay xun intaas ayaan idin la jeclaystay videogan waan idin ku dheeray raali noqda intaan video xiga aan ku kulmayna faafiye walaalihiin gaarsiiye hada wabillahi tawfiiq wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi